horta waad mahadsantahay maxamed waxaan doonayaa maxalul nisaaca dooda shir guddoonku inaan xalkeena ka dhacayn madaxtooyadana ka dhacayn xisbi gudihiina ka dhacayna waxay ka dhacaysaa baarlamaanka dhexdiisa wax dooranayaa waa 82 xildhibaan oo hal qof oo shir guddoona inta iska dhex doortaan qofka ugu da'da weyn maalinta daadihinayo waxaan isleeyahay baani mayno muddo bilaba madaxweynuhu haysta muddada bisha inuu digreeto ku soo saaro maalinta kal fadhiga gooluhu fadhiisanayo baa ka xigtaa cidda guusha heli doonto ilaahay xaqiisa ka qadaran inaguna aynu ogaan doono waxaan isleeyahay anigoo ixtiraam u hayaa aqoonta kartida mabda'a aragtida ay xambaarsan yihiin xildhibaanada hintaan ka arkay inay shir guddoon dalka iyo dadka iyo diinta u dhaaran doonaan wax badan u qaban doonayna horta dooran doonaan ayna ku dooran xisbi ayna ku dooran xukuumad iyo xulafaysi kale maxaan saa u leeyahay iligoo meeshan mas-uuliyadda taallaa ma aha mid miiskan caawa lagu falanqaynayo iyo mid madaxtooyada lagu goyn karayo mas-uuliyadda meeshan taallaa iyo masiirkay mudanayaashu xambaarsan yihiin waxa weeyaan hooyada milicda fadhida ee bilaadallaayada ah ee cashuurta laga qaadayo hooyada gabilay ariga ku dhaqanaysa ama ood weyne ariga ku dhaqanaysa ee ilmaheedu intuu bariis yaroo cad qaado iyadoo 9 bilood ku jirta oo bilaa MCH bartaa loogu geenayo bariis yaroo cad xildhibaanadii nolosheeda ka hadli lahaa ee cashuurteeda u ilaalin lahaa ee xeerar ka soo saari lahaa ee hay'adaha xukuumiga la xisaabtami lahaa ee mas'uuliyadda ku dhaaranayeen ee dadku codka labada habeenimo kuyuga u galayeen badbaadin lahaa ayaa baarlamaanka laga rabaaye lagama rabo in la yiraahdo isbahaysi baa qaadanaya iyo Umar baa qaadanaya Ahmed baa qaadanaya Ali baa qaadanaya waxaan ku rajo weynahay isbahaysiga sababta keentay waxa weeyaan 10 sano u dambeeyay xukuumadda kulmiye talada dalka haysay ogaalkay curinta xeerarka ee taabanaya nolosha bulshada 3 xeerun baa baarlamaanka gudihiisa ka fulay inta kale xukuumadda kaga imanaysa waxaan ogahay madaxweynuhu maalintuu yimaado inuu qudbadeeyo ama silaayada ama Muuse ahaado banaanka baxo oo la oran miisaaniyadda su'aal aan laga weydiin oo aan xildhibaanadu ayna dareenka shacabka ee dhabta ayna qaadi kareen waxaan ogahay khayraadka dalkeena inay wasaaradaynta iska bixiyaan dad ajnabi yimaadaan macdanteena bilaash ay ku gurtaan oo baarlamaan la xisaabtamayaan jirin mas'uuliyadda baarlamaanka sugaysa waa tukowan shir guddoonka sababta markaa isbahaysiga keentay baan doonayaa bartaynan dadka iyo Soomaaliland waan koobayaa sababta isbahaysigan keentay waxa weeyaan war ma habboon tahay baarlamaan sharciga ilaaliya ma habboon tahay saddexdan dhadhaare isturjumaya qodobka 7 firqadiisa labaad ee leeyahay waliba awoodda koowaad firqada labaad ay sheegayso awoodda koowaad in xeer dejintu iska leedahay cid madaxweynaha iyo xukuumadda xakamaysa cid dalkan iyo dadkan u tudha ya inoogu habboon sidee wax loo qaybin karayaa dawladdu maamulkiiba haysataa maaliyadiiba haysataa madaxweynihiiba haysataa militarigiiba imkaaniyaadkii wax kasta u fududeynayba haysataa maadaama dad aynu ka soo qaadanay codkoodii sideenu dadkeena wanaagsan aynu u saari karaynaa miiska oo baarlamaan xisaabtan keeni karayo hintan iyo inta ka dambaysaba matali karaya meesha ma karaya waan isbahaysigu yahay ma aha jeclaysi reehebelna la jecelyahay reehebelna la neceb yahay iyo xildhibaan hebel marka waxaan isleeyahay waan ururinayaa anoona faanin bartan madaxweynaha waxaan si sharaf looga codsanayaa madaxweyne doorasho qurux badan baad qabatay taariikhdu aday kugu xusaysaa adigaas kale ka istiimayno siyaasiyiin oo ku kala duwanahay laakiin doorasho qurux badan oo libinteeda lahayd baa imika shir guddoonka ila meereysada ka daayo waynu sognahay ilaahay wuxuu yiri wala ta'lamunna naba'ahum ba'da hin Soomaaliland way ogaan doontaa cidda aqlabiyadda leh banaanka iyo baarlamaanka madaxweyne isugu keenkeen anigu doodeedu waa intaad baasanta barkhad microphone ka hayso su'aashaydu waxay tahay waxaad tiri dadka wanaagsan ee meesha geeyna 22 xildhibaan baatiin doodno idinka dhaxaysa waana mid siyaasiya dooda Axmed Nuur Gurujina waxa weeyaan 3 xisbi oo inay siman yihiin midna aanu aqlabiyada lahayn duuna duray isbahaysigeena
ma waxay adiga marka aad kala saaraysaa ka wanaagsan iyo ka xun inaad kala wadataan isbahaysiga iyo xukuumaddu maxay tahay su'aashaada hadalka cadee waxaan uga socdaa dilbiis dadka xubnaad wax dooranay bilowgii baan aniga ku furay way waanu dhaaranaa dhaar baa meesha taale mar labaad baan kugu celinaya danta dalka iyo dadka lagu dhaaranaya hogaamin karay baarlamaanka noqonaysa ila cod baan anigu ku fadhiyaa dad baan wakiil ka ahayo Soomaaliland baan wakiil ka ahayo way ilaahayna maalinta qiyaamaha codkan uu weydiinayaa shacabkan cadceeday taagnaa waa la weydiinayaa qof أنا عندنا كو احترامين عبد الرزاقنا كو احترامين عمرنا كو احترامين مركان قولها ما دقفك إساسو شرحان وأركو إن الصومالي لان كو انتهي إنه قف قيمة ليه هي وقيم ليه هي قف أنا قلنا هو قامين كريه هي مرت دورنا يا برخد سؤال شيء دام كويديو مدعوينو حشة إنه ياسين محمود حير فرطون الصومالي لان كو يعني مركان ياسين بدورنا صادو Soomaaliland ku imaatay Soomaha wadaad mataasa maya anu qof islaam aan ahay islaamku saddex shardun buu eega qofka aqoontiisa awoodiisa iyo amaanadiisa waa mahadsantahay amaya dhameeyo meesha cidda imanaysa markaad leedahay maxaa la kala dooranaya qolada kulmiye waxay keentay xildhibaankoodii faratoon annaguna cabdirasaaq baanu keennay anigu imikaan Soomaaliland u caddeynayaaye yaasiin faratoon waa nin odaya لكن نسشوا بهاية وقت كنا نسشنا هذا أداي مكالورة لها قدومية قولها وكيلة كلمية وحكاية يا أحمد نور قريتشي لأن نسكفي لأنه نهاية شرعية قانو لأن يرى وقامين كرايا ده قدومية قولها يسقى من سيل هارو أو ده أمانة وضع مركانو عبد الرزاق تنكف فضيلة يا واتا واد ما سنت واي إن وحسينا يا حسن dhuxul LAABSALAX oo xisbiga kulmiye ah doodiisa iyo dooda barkhadna balance ku eegna insha Allah waan soo dhaweynaya ilaahay baa kaligii ma hadle waxa laga hadal ma dheera xildhibaanka hadlaya aynu dhageysano aragtidiisa siyaasiga ee shirgudoonka waxa laga hadlayay shirgudoonka golaha wakiilada kulli toolasa aynu ognahay xisbiyada kulmiye waxa uu taagan faratoon cabdirasaaqna xagga kale u taagan yahay 82 mudane golaha yimid baa dooranaya kii ilaahay u qorana way imanaya waxa laga dhur sugayaa oo marka uu madaxweynuhu soo saaro bisha gudaheega maadaama maxkamadii ay ku dhawaaqday in xildhibaanadu fadhiistaan ninka ugu dadweynaha hogaamiyo sidoo qodobka 4 sheegayo ama xeeroosaadka golaha wakiiladu laakiin waxaad moodaa in fahan qaldan laga haysto saaxiibadii baan maqlayo marka laga hadlayo faratoon iyo cabdirasaaq inta badan waxa sheegaan in cabdirasaaq ku haboon yahay sidii Barkhad sheegay in ninka la yiraahdo faratoon uu nasasho u baahan yahay horta inagu miyaa layna aqoonsaday cabdirasaaq uu firfircoon yahay baa laga sheekeeyaa ma maratoon buu ka qayb galaya hadii maxaad uga jeedaa maratoon buu ka qayb galaya yani ma orod baad leedahay maxaad uga jeedaa su'aasha cadde xildhibaanada maadsan cabdirasaaq ma durayo runtii inuu dhalinyaro yahay inuu nin wanaagsan yahay inuu firfircoon yahay baa lagu soo celceliyay marka haddii orod loo baahan yahay cabdirasaaq nagayno orodka inoo qayb galay laakiin waxa loo baahan yahay isku hayn 82 mudane oo 82 barkhada meesha jooga yaa isku hayn kara waxa isku haynaya nin dul leh wax badan u soo joogay dastuurkan ninka la yiraahdo maxamed faratoon ku qoray waxbuu ka qoray lix jeclo fara badan buu dalkan ka leeyahay waa waayarag taasaanu ku xulanna qodobka kale maxamedow aan doonaya inaan saxo xildhibaanada saaxiibaday waxay ku celceliyeen lacag baa kulmiye bixinaya ajiib lacagtan la bixinayo waran waxaan leeyahay xildhibaanada mucaaradka cayda ka daaya yaan lagu gafi ilagoo waxa weydiinaya qiyamkooda waan ku siinaya microphone waan ku siinaya Umar adaa u jawaabaya waan ku siinaya waan ku siinaya su'aashaada waad weydiin doontaa waan ku siinaya ana ku siinaya Umar Jaamac way waqtigiisa ha dhamaysto cali isoo noqo aynu ismaqalno way xildhibaan ku soo dhawow xisbiyada mucaaradku arrinta lacagtaad ka hadashay ee laydinku eedaynaya xisbigiina kulmiye inaad siinaysaan xildhibaano mucaarada waniyo shakhsiyan anuu meel lagu bixinayo lacagta
iyo cid bixinaysa afka mucaaradka way ku jirtaa hada iyo jeerna way ka hadlaan xildhibaano soo daalay soo tartamay inay hogaamiyaan golahan iyo inay ka mid noqdaan iyo inay wax saxaan in la yiraahdo lacag baa la siinayaa meesha ma qabato hadday dhacdo oo sidaaba ay ku soo celceliyaan markii hore aan oran karaa ayay xulashada waxa xumayd mucaaradka haddiiba laga iibsan karo ama laga kaxaysan karo maxay ka soo sharaxayeen عمر باك جوابيا عمر باك جوابيا وعمر تام فارح maxaad soo sharaxayseen haddii la idinka iibsan karo ama la idinka kaxaysan karo xildhibaanada aad ka warwarayso ee walaaca ka muujisay markii dhaweey horta waa runtiisa mid waxa weeye inta su'aasha weydiin waxaan jecelahay inaad ka jawaabto taa horta waxa dhacday